waxa la isku haystaa horta dadku isma haystaan ta ugu horreysa waa taasi dadka caadiga ee nawaaxiyada ku nool lagu sheego Somaliland iyo Puntland isma haystaan iyagu waxay haystaan waxa weeyaan siyaasiyiintuna waxay isku haystaan damac weeyaan damacna iyadoo bil Ramadaan la joogo in dadkii lagu dambi lagu geliyo iyo kon waxay galabsadeen aan jirin waxa weeyaan la yaab waaye waxaanad moodaysaa Soomaalida siyaasiyiinteeda inteeda badan meeshii doonayaanba ha joogaan inay ka door bidaan had iyo jeer dantooda shakhsiga danta dadweynaha iyo ummadda balanbalasa marka meelayowgan la isku hayo ee la leeyahay cadowgii baanu dilnay iyo wax la mid ah dadka degani waa dad iswada dhalay Soomaalinimada sare marka hada ka timaadid waa dad wada baaba'ay oo iskuuladoodii baaba'een dhaqaalahoodii baaba'ay marka in askarinka la soo duldhigo la yiraahdo dadkii baan qaxinana waa wixii ka taagnaa galkacay oo kale weeyaan dadka kolba lagu qaxinayay waaye marka waa jariimad waaye runtii weyn waxaa la isweydiin karaa maxay tahay danta shakhsiga ama siyaasiyiintu ay ka heli karaan in bil Ramadaan ka sokow dad aan waxba galabsan lagu dul dagaalamo shacab la barakiciyo ciidamo la iska hor keeno oo labada dhinacba waxa dhimanaya ay Soomaali yihiin danta siyaasiyiintu ka heli karaan maxay tahay waxa weeye qolada madaxda ama dadka reer Puntland iyo dadka madaxda Hargeysa ma dadka waqooyi degan ma labada siyaasiyiin baynu ka hadlanaa ninka jooga Garowana waxa weeyaan doorasho ku soo socota uu si xamaan samaysanaya ama kharash u urursado musuqmaasuq lagu galayo ama wax kale ha lagu galayo waxa weeyaan si meesha ugu soo noqdo wax uu sameynaya wax allaaliyo wixii Ilaahay xaaraantinimayo dhan buu sameynaya qolooyinka Hargeysa joogtana waxa weeyaan qolooyin baarqabo imika soo kacayo halade waa in la ictiraafku marka haday ku imanayo in dad masaakiin la xaaqo uma aaba yeelayaan labada dan ee shakhsiga waa labada weeyaan marka laga tago in la isku hayo tukraq oo hadda jiida hore ee labada ciidan ee isku hor fadhiyaan muddo ayuu taagnaa murankan iyo khilaafka labada deegaan u dhaxeeyo Somaliland iyo Puntland oo la isku hayo deegaankan Sool wuxuu ka tirsan yahay Puntland iyo kama tirsanay wuxuu ka tirsan yahay Somaliland miyaan la heli karin xal aan ciidan iyo in la isxabadeeyo ahayn waxa kaasi walaal wax aad iyo taal u fudud haduu iimaan jiro weeye hadii qolada Hargeysa madaxda ka yeena iimaan ay leeyihiin kuwa Puntland degan ee Garowe joogaana iimaan ay leeyihiin waxa weeyaan xal waxa weeyaan dalaan ku garan karayo in ciidamada la kala qaado meesha ay noqoto meel ciidan una joogin kuwa Puntland ayna joogin kuwa Somaliland sheeganayana ayna joogin oo dabeedna dadkaas la isku soo celiyo waxa dagaalka weyn waxa weeyaan walaal in dadkaasi biyaha cabaan oo nadiif ah ay helaan inay cunto wanaagsan helaan oo u shaqaystaan in carruurtu iskuul oo helaan inay dhaqaatiir helaan in shaqooyin la helo maanta dagaalka ugu weyn ee adduunka lagu jira intaas weeye ma kii rasaasta maaha marka dad abti iyo adeer iyo habka wadaag iyo ilmaha feed isku ah in rasaas lagu kala dhex dhigo horta waa yaab tilmaan baan ku siin walaal doqonnimada meesha taala waa horaan tagay oo imika dhowr muddo 10 sanadood iyo jarjar laga joogaan tagay gobolada Garowe xereedaheeda cilmi baaris baan ka sameynay waxaanu eeganay jeelalka iyo maxkamadaha bal sida u shaqeeyaan baanu eeganay waa markii Cabdullaahi Yuusuf ka tagay uu meesha waay markaas maalin anigoo jeelka Garowe jooga oo nin ila socdo iskuulka Sheekh ee secondary school ka soo baxo qolooyinkii naga horeeyay aniga ahaa ayaa markanu dadkii baan arkay jeelka ku jiray wixii baan arkay markanu meeshii jeelkii ka baxano ayay qoladii askar maxaabiista qayrada war hebelow ninkii la socday askariga ah ciidanka uu sheegay la hadlayaan waxaan war kuwan habeenkii bay nagaraacan markaad naga tagtid naga celi meeshan ku war ku soo noqo waan ku noqono markaas ku maxaa la inii garaaca kuwan baan nagaraac war wax maxay yihiin baan kuwan waa cadowgii laga soo qabtay Somaliland markaasaan ku war adigu soo sheekh kamaad soo bixin marka aniguna cadow baan heeday anigana igu darjeelku habeenkii halay karbaashay waa idin waxaan marka garaab xumida meesha taala labada qayboodba waa taas weeyaan walaal in dadka la leeyahay jeeska degan ayaa isku cadowga ayay balaayadu tahay walaal taa dhaqan xumada markii laga tago haddii ay labada dhinacba ka jirto ama dhinaca ka jirto waxaa isweydiin leh waxaa meesha yaalo
arrin baa la isku hayaa siduu doonaba ha u foolxumaado ha u guracnaado laakiin soomaalida waxay tidhahdaa professor Samatar gari laba nin kama wada qosliso maxaa lagu xallin karaa baad is leedahay ugu dambeyntii arrinta sool ayadoo aan ahayn wanaag ha la sameeyo dadka biyo iyo horumar ha loo sameeyo siyaasiyan sidee loo xallin karaa baad is leedahay waxa weeyaan labada ciidanba in meesha laga qaado horta oo la dhaho inkuna ka baxa horta dadku bal ha ku soo noqdaan meeshoodii nabad ha noqdaan haddii dadkan siyaasiyiintii ay sheeganayaan inay madax rasmi yihiin madax rasmiya waxaa lagu noqdaa waxa weeyaan dadkoo ku ogol waayo ood adigu u hoggaansantid dadku waxay ku heshiiyeen markaa in dadka meesha degan la shiriyo iyaka dantooda laga wada hadlo labada ciidanna laga qaado haddii taa la yeelo waxay noqonaysaa cid Somaliland kuma soo duulaso Puntlandna kuma soo duulaso Somaliland dadkii meesha deganaa ee balanbalay hadda meesha nabad ha ku soo noqoto naruura ha timaado markaa taa la helo ha laga doodo oo ha la yidhaaho dadkani yay ogol yihiin inay raacaan haddii Soomaali weyn la baabinayo iyo haddii Soomaali weyn la dhisayo haddii Puntland la dhisayo iyo haddii Somaliland la dhisayo dadkani yay ogol yihiin inay raacaan khasab hore ayaa dawladdii militariga ahayd iyo qaar falaxuun oo ka dambeeyba khasab cidna waa lagu kari waayay marka waxa weeyaan siyaasiyan waxa weeye danta dadka waa in laga shaqeeyo weeyaan maxaa dadkan dantooda meesha jooga si aayahooga dambe marka dambe iyo ku ay uga tashadaan